السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوده ما ogtahay goobta uu ku yaalo dhismaha ugu dheer caalamka 2021 waxaan filayaa in ay dad badani aqoon u leeyihiin ama qiyaasi karaan su'aashani jawaabteed balse laakiin ma filayo in ay dad badani aqoon u leeyihiin goobta uu ku yaalo dhismaha labaad ee caalamka ugu dheer ama kan saddexaad ama kan afraad haddaba daawade muuqaalkan waxaan idinku soo gudbin doonaa 10 dhismood ee caalamka ugu dheer 2021 balse laakiin arrinta la yaab kale waxay tahay dhismayaashan badankoodu kuma yaaliin wadamada reer galbeedka iyo Mareykanka toona ee la socdaan daawade haddii aad ku cusub tahay channelka fadlan subscribe noo saar gambaleelkana furo kaalinta tobnaad dhismaha tobnaad ee caalamka ugu dheer waxaa lagu magacaabaa Taipei 101 dhismaha Taipei ayaa ku yaala bartamaha magaalada Taipei dhismahan ayaa astaan u ah magaalada Taipei oo dhinac walba ka muuqda dhismahan oo ah kan tobnaad ee ugu dheer caalamka ayaa muddo 5 sano ka badan ahaa dhismaha caalamka ugu dheer laga soo bilaabo sanadkii 2004 ilaa 2010 dhismahan ayaa ku yaala wadanka Taiwan gaar ahaan caasimadiisa Taipei dhismahan ayaa dhismihiisa la bilaabay sanadkii 1999 waxaana la dhammaystiray dhismihiisa 2005 dhismahan ayuu dhererkiisu yahay 509.2 mitir sidoo oo kale wuxuu ka kooban yahay 101 dabaqadood dhismahan waxaa ku baxday adduun lacageed oo dhan 1.895 bilyan oo doolarka Mareykanka kaalinta sagaalaad dhismaha sagaalaad ee caalamka ugu dheer waxaa lagu magacaabaa China Zone dhismahan ayaa ku yaala wadanka Shiinaha gaar ahaan magaalada caasimadda ee Beijing dhismahan ayaa ah dhismaha shanaad ee Shiinaha ugu dheer iyo kan sagaalaad ee ugu dheer caalamka dhismahan ayaa la bilaabay dhismihiisa 2011 waxaana la dhammaystiray 2018 dhismahan ayuu dhererkiisu yahay 527.7 mitir wuxuuna ka kooban yahay 109 dabaqadood oo sare iyo 8 dhulka hoostiisa dhismahan ayay ku baxday adduun lacageed oo dhan 3.8 bilyan oo doolarka Mareykanka kaalinta sideedaad dhismaha sideedaad ee caalamka ugu dheer waxaa lagu magacaabaa Tianjin Finance Center dhismahan ayaa ah dhismaha afraad ee ugu dheer Shiinaha iyo kan sideedaad ee ugu dheer caalamka dhismahan ayaa ku yaala bartamaha magaalada Tianjin ee wadanka Shiinaha dhismahan ayaa la bilaabay dhismihiisa 2011 waxaana la dhammaystiray 2019 dhismahan ayuu dhererkiisu yahay 530 mitir sidoo kale dhismahani wuxuu ka kooban yahay 97 dabaqadood kharashka lacageed ee ku baxday dhismahan ayaan la shaacinin kaalinta toddobaad dhismaha toddobaad ee caalamka ugu dheer ayaa lagu magacaabaa Guangzhou Financial Center dhismahan ayaa ku yaala magaalada Guangzhou ee wadanka Shiinaha dhismahan ayaa ah dhismaha saddexaad ee ugu dheer Shiinaha iyo kan toddobaad ee caalamka ugu dheer dhismahan ayaa la bilaabay dhismihiisa 2009 waxaana la dhammaystiray 2016 dhismahan ayuu dhererkiisu yahay 530 mitir sidoo oo kale dhismahan ayaa ka kooban 111 dabaqadood oo sare iyo 5 dhulka hoose ah dhismahan ayay ku baxday adduun lacageed oo dhan 1.8 bilyan oo doolarka Mareykanka kaalinta lixaad dhismaha lixaad ee caalamka ugu dheer ayaa lagu magacaabaa One World Trade Center dhismahan ayaa ku yaala magaalada New York ee wadanka Mareykanka dhismahan ayaa xasuus u ah labadii dhismood ee mataanaha ahaa ee ku burburay weerarkii 11 Sebtembar ee 2001 dhismahan ayaa ah dhismaha ugu dheer qaaradda Ameerika tan iyo 2013 dhismahan ayaa la bilaabay dhismihiisa 2006 waxaa sidoo kale la dhammaystiray 2015 dhismahan ayuu dhererkiisu yahay 541.3 mitir dhismahan ayaa ka kooban 94 dabaqadood oo sare iyo 5 hoose dhismahan ayay ku baxday 3.9 bilyan oo doolarka Mareykanka kaalinta shanaad dhismaha shanaad ee caalamka ugu dheer ayaa lagu magacaabaa Lotte World Tower dhismahan ayaa ku yaala magaalada madaxda Seoul ee koonfurta Korea dhismahan ayaa la bilaabay dhismihiisa 2011 waxaana la dhammaystiray 2017
2017. Dhismahan ayuu dhererkiisu yahay 556 mitir. Dhismahan ayaa ka kooban 123 dabaqadood iyo 6 dhulka hoose ah. Dhismahan ayay ku baxday adduun lacageed oo dhan 2.5 bilyan oo dollarka Mareykanka. kaalinta afraad dhismaha afraad ee caalamka ugu dheer ayaa lagu magacaabaa Ping An Financial Center. Dhismahan ayaa ku yaala magaalada Shenzhen ee dalka Shiinaha. Dhismahan ayaa ah dhismaha labaad ee ugu dheer dalka Shiinaha iyo kan afraad ee ugu dheer caalamka. Dhismahan ayaa la bilaabay dhismihiisa 2010 waxaana la dhammaystiray 2017. Dhismahan ayuu dhererkiisu yahay 599.1 mitir. Sidoo kale dhismahan ayaa ka kooban 115 dabaqadood iyo 5 hoose. Dhismahan ayay ku baxday adduun lacageed oo dhan 1.5 bilyan oo dollarka Mareykanka. kaalinta saddexaad dhismaha saddexaad ee caalamka ugu dheer waxaa lagu magacaabaa Abraj Al Bayt. Dhismahan ayaa ku yaala magaalada barakeysan ee Makka ee dalka Sacuudiga. Dhismahan ayaa u jira dhowr kiiloomitir Kacbada. Dhismahan ayaa ah dhismayaasha saacada leh dhismaha ugu dheer caalamka. Dhismahan ayaa la bilaabay dhismihiisa 2004 waxaana la dhammaystiray 2012. Dhismahan ayuu dhererkiisu yahay 601 mitir. sidoo kale dhismahani wuxuu ka kooban yahay 120 dabaqadood. Dhismahan ayay ku baxday lacag waali ah markaad maqasho taasoo dhan 15 bilyan oo dollarka Mareykanka. kaalinta labaad dhismaha labaad ee caalamka ugu dheer ayaa lagu magacaabaa Shanghai Tower. Dhismahan ayaa ku yaala magaalada ganacsiga ee Shanghai ee wadanka Shiinaha. Dhismahan ayaa ah dhismaha koowaad ee ugu dheer wadanka Shiinaha iyo kan labaad ee ugu dheer caalamka. Dhismahan ayaa la bilaabay dhismihiisa 2008 waxaana la dhammaystiray 2012. Dhismahan ayuu dhererkiisu yahay 632 mitir. sidoo kale dhismahan ayaa ka kooban 130 dabaqadood iyo 3 hoos ah. Dhismahan ayay ku baxday 2.4 bilyan oo dollarka Mareykanka. kaalinta koowaad dhismaha koowaad ee caalamka ugu dheer haatan ayaa lagu magacaabaa Burj Khalifa. Dhismahan ayaa ku yaala magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta. Dhismahan ayaa ah dhismaha ugu dheer caalamkan aynu ku noolahay haatan tan iyo 2010. Dhismahan ayaa la bilaabay dhismihiisa 2004 waxaana la dhammaystiray 2009. Dhismahan ayuu dhererkiisu yahay 828 mitir. sidoo kale dhismahani wuxuu ka kooban yahay 163 dabaqadood. adduunka lacageed ee ku baxday dhismahan caalamka ugu dheer ayaa lagu qiyaasaa 1.5 bilyan oo dollarka Mareykanka. daawade waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan ee fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe noo saar gambaleelkana furo si aad ula socoto muuqaalada mar walba aan soo dhigno. mahadsanid.